السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داودياشا قيمة يقدرنت أنا جمضن ميل والبوع على العالم ككتشوكتان كسر وهذا مركل يوم وقال ذي أضنوغ برتين إن أنا إذن كيسو قد بيو سيد أبو ميديا وحن شوقنا مقالة مليندي دالك كينيا halkaas ayaan soo aadnay aniga asxaabtayda safar dalxiisa waxaan rabnaa inaan muuqaalo aad u xiis badan idin soo gudbino isla socod wanaagsan ilaa ay dhamaadka muuqaalka nala jooga واتاي صاحبيال hadda waxaan ku soo leexnay masaajidka Umarka Malindi waxay noo jirtaa 15 kilomitir meel waxaan joognaa hadda Malindi hoos tagto marka insha Allah salaadii duhur iska bixinay casir oo isku darna maadaama musaafir nahay hadda waan bixinaa waxaan aadeynaa meel xaggaana insha Allah idin ma hordhici doono waxaan joognaa xeebta ama badda oo ugu quruxda badan Malindi ayaan joogaa badan waxay leedahay sida waa Dubai hadaad aragteen meelaha bacaadka ah ee la isticmaalo mootooyinka bacaadkaas atageena mootooyinka fuuleena waan fiirinayna kulay mootada aan wareysan doonaa asxaabteena way dhaqaaqeen way baxeen xaggaas joogan meeshaan waa meel aad iyo aad u qurux badan salaadeena oo soo tukanay hadda marka waxaan sameeynaa xaggaas inaan tagno isla fiirina insha Allah isla aragno xitaa waxa jooga mataqaana farasta meesha joogta ma aqaano qiimaha lagu raaco sidoo kale doonta qiimaha lagu raaco ma garanayo wax yaani sawir ah kama haysto ama xog ah kama hayo wax xog ah kama hayo واتاي صاحبيال waxaan imaanay halka mootada laga kareeyo mootada 5 daqiiqo waa 1 shilin 10 daqiiqana waa 1800 oo shilinka Keymaaniya adiga $12 ilaa $15 oo intaas leegtaa mootada waa qaadanayna waa sugeynaa waxayna dhaheen 5 daqiiqo marka qiimo dhimis ay noo sameeyeen 1500 ay nooga dhigeen halka ay ka ahayd 1800 1500 ayaan bixinaynaa insha Allah صاحبيال meeshii hadda aan aadnay waxa la dhahaa Dune ayaa la yiraahdaa waa goob lagu dalxiis tago waa meel aad u qurux badan saas ku soo aragteen muuqaalka marka insha Allah hadda waxaan aadeynaa Malindi mootadiina waan raacnay Malindi aan aadeynaa hadda waan bixinaa insha Allah
hagaag saaxiibayaal waxaan joognaa Malindi ayaa hadda soo galnay halka iga dambayso Malindi police station kooda waa halkaas waxaan aadeynaa hadda qado ayaan doonanaynaa markaan qadayna kadibna magaalada gudaha ayaan u gali doonaa insha Allah waa tahay saaxiibayaal maqaayadana ku soo leexnay waxaan cunaynaa soor ama sima ay dhahan reer Mombasa Nairobi waxay dhahan ugali marka soorteena cunayna kadibna waxaan galeynaa magaalada saawaridi kugu soo sheegay waxaan tagi doonaa xeebta ama badda Malindi oo halka bridge ugu weyn halkaas tagayna markaan qadayno insha Allah hagaag saaxiibayaal waxaa hadda soo gaarnay ama joognaa Butwane Beach oo markaas ku taala magaalada Malindi waa meel aad u qurux badan waxay leedahay bridge-kan waan idin tusi doonaa bridge dheer waa wuxuu tagaa ilaa iyo baddu ayuu galaa horadaas ayuu naga jiraa ma fahanteen marka bridge-ka korkaan dadka qaar ka koraan mar hore ayaa la dhisay dayactir ay u baahan tahay ujeedaan halis laakiin inuu dumo halis ugu jiro ba bridge-kii waan soo fuulay hadda waxaan rabaa in ilaa iyo xaggaas inaan tagno ina mariyaan isla soo aragno mujidan bridge waa kaasa assalaamu alaykum satay bridge waa kaasa halka satay faantay masha Allah magaca mahad insha Allah waxaan tageynaa ilaa iyo xaggaasaan tageynaa waxaa jiro mikrofonkiyaa soo hilmaamay mikrofonka gaarigaa ku soo hiloobay marka codka hadduu idin soo gaari waayo naga raali noqdo insha Allah daweel aan caadi ahayna halkan ka jirto ma fahanteen marka xaggaasaan tageynaa waan soo eegaynaa insha Allah dad badan ayaa halkaa ku dawaalanayaan oo halkaan maanta ku baashaalayaan badda waatana Malindi beachkooda waa sidaan badooda waa kalan rooba daay marka waa asaan markay dheelay akaasaan jibiyo beedan intee ku yaalaa kana sayd ugu buuxaa waa isaga waa dhaxda la jibiya sama assalaamu alaykum satiin ya sobsen laaka gaarigeennaan doonanaynaa haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fadlan channelka subscribe dheh like saar asxaabtaadana la wadaag wixii fikirahana qaybta hoose noogu reeb inta aan muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh